bismillaahi raxmaani raxiim ramadaan mubaarak daawadayaal halkani waa waddanka t v oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaan idiin haynana waxaa ugu doroon xildhibaanadii lagu doortay ceelwaaq oo lagu dhaariyey magaalada muqdisho guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xogayaha golaha shacabka iyo goobjoogaha soomaaliya oo ay soo wajihi kartaa halis ku saabsan heshiiska shidaalka 5 su'aalood oo jawaab u baahan nin midowga yurub ka socday oo 6 bilood muqdisho joogay oo ka sheekeeyey arrin uu jeclaystay iyo mid uu ka dayriyey dalalka midowga yurub oo dhan kala jira yukrain dhinacna ka hubaynaya dalka ruushka liiska dalalka hubka ka iibiya dagaalka saddexaad ayaa bilaabanaya markaan ruushka oo ka digay hub nukleer ah oo uu maraykan ku geeyey hawada sare iyo turkiga oo 7 sano kadib dib u fasaxay duulimaadyadii dalkiisa ku xayiray bengaasi iyo bariga libiya labadaasi qodobo kale ayaad waddanka ku daawan doontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 25 abril sannadda 2022 iminkana u diyaargarooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowno marka hore inta badan bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahinta dalka kuma baraarugsana halista weyn ee ku gadaaman khayraadka dabiiciga ah ee dalkeena gaar ahaan shidaalka dhawaan waxaa jiray heshiis toddobaadyo xirmo lagu siixay Coastline oo ah shirkad ka shaqaysata sahminta shidaalka gaar ahaan biyaha fog ee badda shirkaddan oo horey loo oran jiray Som Oil and Gas waxaa la aasaasay sanadkii 2013 laakiin magacii ayaa laga bedelay 2018 shirkadda Coastline ayaa website-keeda ku qortay heshiiska uu siixay wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed heshiiska oo ka dhacay hotel ku yaala dalka Turkiga ma jirin xog badan oo markaasi ka hor laga helay laakiin wax yar kadib markii shirkaddu qoraalka sii daysay ayaa waxa isna Twitterkiisa ku sheegay wasiirka batroolka Soomaaliya waxa uu sidoo kale Cabdirashiid Maxamed uu intaasi ku daray in madaxweynaha uu la ogaa heshiiska uu siixay qoraal uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in warka ka soo baxay wasiirka batroolka uu yahay mid aan sax ahayn Farmaajo ayaa sidoo kale laalay heshiiskaasi kuna tilmaamay sharci darro ra'iisul wasaare Roble ayaa si la mid ah tilaabadaasi uu madaxweynuhu qaaday sameeyay bishii December 2020 waxa uu shir ka dhacay dalka Turkiga waxa shirkaasi ka qayb galay 5 xubnood oo ka socday wasaaradda batroolka iyo madax ka socotay hay'adda shidaalka ee Soomaaliya sida ay ii sheegeen dad shirkaasi ka qayb galay oo diiday in aan magacooda xigto wasiirku qarshaha kuma jirin in uu shirkaasi yimaado laakiin waxa uu tagay Turkiga kadibna waxa uu xubnihii Soomaaliya ka socday ee shirka joogay sheegay in uu siixayo heshiis arrintaasi waxa ka dhashay khilaaf ugu dambeyn sababay in Soomaaliya lagu soo laabto iyadoo aan wax is-afgarad ah la gaarin mar kale ayaa waxa magaalada Muqdisho soo gaaray mas'uuliyiin ka socday shirkadaha Library iyo waliba Coastline si loola galo heshiis dhanka shidaalka ah Library ayaa qorsheynaysay in loo siixo 3 xirmo oo ku yaala Galmudug iyo Jubbaland halka Coastline loo siixo 7 xirmo oo ku yaala Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed iyo xitaa Jubbaland heshiiska oo xafladiisa lagu diyaariyay xarun ku taala gudaha garoonka dayuuradaha ayaa dhici lahayd 4 January 2021 laakiin lama siixin sabab la xiriira culays ka yimid beesha caalamka taas oo Soomaaliya ku qasabtay in heshiiskaasi ay ka baaqsato sida ilo xoogaala ay sheegeen xeer ilaalinta Soomaaliya waxa ay horey ugu yeereen mas'uuliyiin ka tirsan SBA iyadoo maantana lagu wado inuu hortago wasiirka batroolka Soomaaliya haddaba waxaa jira su'aalo u baahan in si weyn looga jawaabo oo mudan in xeer ilaalintu ay muhiimad siiso kuwaasoo dan u ah qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed si looga baaqsado in lagu takrifalo kheyraadka shidaalka Soomaaliya weydiimaha ayaana ah maxaa qasbay in wasiirka uu siixo heshiiskan oo horey looga baaqsaday in Muqdisho lagu siixo wasiirka makaligi ayaa arintani ku dhaqaaqay mise sida uu sheegay mas'uuliyiin ka sarreysay ayaa arintani ku lug yeelan kara haddii uu jiro mas'uul amray ma jiraan cadeymo qoraal ah oo la hayo haddii loo baahdo in dad xilal sare haya su'aalo la weydiiyo suuragal ma tahay in madaxweyne Farmaajo uu dhankiisa wax aan ahayn beeninta hadalkii wasiirka uu miiska soo saari karo heshiiska la siixay culays intee la eg ayuu dalka ku yeelan karaa sharci ahaan ganacsi ahaan iyo siyaasad ahaanba su'aalo weydiinta xeer ilaalinta maxaa daba socon kara oo lagu qancin kara dadweynaha Soomaaliyeed haddaba sida ay arintan ay meel adag isaga taagto xeer ilaalinta ayaa waxa ka dhalan kara 2 arin oo muhiim ah kuwaasoo kala ah in qof walba oo ku dhiiranin oo ku tagrifala awoodda dawladda ee uu hayo iyo kheyraadka dalka amaba in laga fogaado wax walba oo khatar ku ah qarankan
dib u dhismaya oo la tiicaya dhibaatooyinka amni, dhaqaale iyo siyaasadeed. Si kooban, xeerlaalinta Soomaaliya waxaa la dhowrayaa sida ay ula macaamilaan kiiskan oo ay indhaha ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, kaasoo ah hal xiraale la dhowrayo sida ay u furaan. Waa hagaag nin lagu magacaabo Marco Hikula oo muddo 6 bilood tababaro ay midowga Yurub sheegto in ay bixiso u joogay magaalada Muqdisho ayaa ka dayriyay mustaqbalka Soomaaliya. Waxa uu ninkan oo qiray in Soomaaliya ay tahay dal xiiso badan oo cimilo iyo qorax fiican leh, habdhaqanka anaaniga iyo weliba maangaamnimada ku dhisan ee siyaasiyiinta. Soomaalida mustaqbalkoodu ma qurxoona, waxaa dilaya musuqmaasuq, hunguri weyni iyo weliba madaxdooda iyo qabaa'ilkuba ay ka fakerayaan danahooda gaarka ah iyo sida ay xukunka u haysan lahaayeen, ayuu ku bilaabay qoraalka oo aynu qayb ahaan turjunnay. marna dantooda guud uma midoobaan, ma aha sida Ukrainiyaanka oo u midoobay dantooda. waa sargaal u dhashay Finland oo Soomaaliya soo joogay 6 bilood ayuu raaciyay. muxuu runta noogu caayayaa? jawaabta adinka ayaa linkaga baahan yahay. waa hagaag, dalalka midowga Yurub ayaa sheegay in ay cunaqabateenno badan ku soo rogeen Ruushka, balse sida ku cad dukumiinti uu sii daayay The Telegraph, France iyo Germany oo qura ayaa Ruushka ka iibiyey hub ku kacaya 273 milyan oo euro intii u dhaxaysay 2015 ilaa iyo 2020, tii ay jirto cunaqabateen la saaray 2014 kadib goosigii Crimea. qalabka military ay Ruushka ka iibiyaan wadamada midowga Yurub ayaa isugu jira bambaanooyin, gantaalo, roketyo iyo weliba madaafiic culus, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray guddiga midowga Yurub. ugu yaraan 10 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa Ruushka ka iibiyey hub qiimihiisu yahay 350 milyan oo euro, taasoo xadgudub ku ah isla cunaqabateynta midowga Yurub. shirkadaha agabka difaaca ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa mas'uul ka ah 78% iibkan. wadamada midowga Yurub ee go'aansaday in ay sii wadaan iibinta hubka ee Ruushka ayaana sidoo kale sii waday in ay 1 bilyan oo euro maalintii ku bixiyaan saadka tamarta ee Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. dadka u doodaya iibinta hubka iyo dowladda federaalka Berlin ayaa waxa ay xuseen in hubka ay iibiyeen loo isticmaalo arrimaha rayidka oo keliya. Faransiiska ayaa xitaa qorsheeyey in uu sii wado iibinta 2 markaboo dagaal oo nuuca ee Mistralka oo Ruushka ka qaadan lahaa ilaa 2015, laakiin iibintaasi waa la joojiyey natiijada cadaadiska Mareykanka iyo saaxiibada kale ee Yurub darteed. midowga Yurub ayaa sidoo kale Ruushka ka iibiyey hub iyo rasaas ku kacaya 39 milyan oo euro. dhanka kalena Ruushka ayaa ka digay in weerar ka dhan ah dayax-gacmeedyadu uu sababi karo dagaal caalami ah oo saddexaad, sida uu sheegay Dmitry oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee Ruushka. waa in maskaxda lagu hayaa in burburinta dayax-gacmeedyada shisheeye ay ka dhigan tahay dagaalkii adduunka oo saddexaad. mana jiro wax shaki ah oo taasi ku saabsan, ayuu yidhi Rognison isagoo isticmaalaya ereyga Laatiinka ah ee loo adeegsado sababaha sharci ahaan si rasmi ah loogu bilaabo dagaalada. maxaa Ruushka ka qaylaysiiyey? Mareykanka ayaa wada mashruuc Boeing X-73 oo ah dayuurad aan ciidna wadin oo tegi karta hawada sare iyadoo hubaysan, taasoo tan iyo 2010 howlaheeda la qarinayay qaybaha ka ah mashaariicda wasaaradda gaashaandhigga. dayuuraddan oo hanti muhiim ah u ah militariga Mareykanka ayaa markii laga soo tago in ay samayn karto sahan iyo sirdoon, waxa ay sidoo kale qaadi kartaa hubka nukleerka iyadoo qorshaynaysa in ay duulimaadkii 6aad ku tagto hawada sare. walow uu Ruushku sheegay in ay haatanba ku jirto hawada sare iyadoo ah dayuuradda qura ee marka ay hawada sare ka soo noqoto si caadi ah u soo degi karta. Ruushka ayaa ka digay in la hubeeyo hawada sare iyadoo uu Roxon sheegay in ay markii ay arrintaasi iyaga iyo Shiinuhuba ay Mareykanka ula tageen uu ku salaamay dhegaleer u daloola. Ruushka laftiisu waxa uu leeyahay MiG-31 oo qaadi kara gantaalo lagu ridi karo hawada sare oo lagu burburin kara dayax-gacmeedyada, iyadoo 2018 la arkayey dayuuraddan oo ka timid xilligii Sofiyeetka oo ay galbinayso dayuurad kale oo ah MiG-29. in hubka waxgumaada ee la geeyay hawada sare ayaa si caalami ah u mamnuuceed tan iyo 1967. ugu dambeyn, dayuuradda ay dowladda Liibiya maamusho ee Liibiya ayaa lagu wadaa in ay dib u bilowdo duulimaadyadii tooska ahaa ee ay kaga imaan jirtay bariga dalkaasi ee tegayay dalka Turkiga kadib muddo ka badan 7 sano. maalinta Khamiista ah, sargaal ka tirsan garoonka caalamiga ah ee Penina ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in dayuuradda sida gaarka ah loo leeyahay ee Libyan Perner
ay duulimaadyadii ugu horreeyey ka samayn doonto garoonka banina ilaa garoonka istanbul kadib ciidulfidriga taasoo ku beegan dhammaadka bishan soonka duulimaadyo isaga kala goosha galbeedka libiya iyo weliba turkiga ayaa caadiyan u socday balse kuwa bariga waxaa la hakiyey sanadkii 2014 sababa la xidhiira culaadda hubaysan ee gobolka ka jirta oo ay weheliso khilaaf u dhexeeyey ankara iyo maamulkii bengazi ee xilligaasi hogaaminayay khaliifa xaftar 29 januari ee sanadkan safiirka turkiga ee libiya kanaan yelmas ayaa wakaaladda wararka anadolu u sheegay kadib booqasho uu ku tegey bengazi in uu kala hadlay dhinaca libiya dib u soo celinta duulimaadyadii turkish airlines ee magaaladaasi qodobkaasna wuxuu u dambeeya warkii waddanka inta aynu ka gaarayna warkayaga xigana waxaan kaga tegaynaa guuli gobonnimo